Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahayga qaaliga kusoo dhawaada janaalka surbiyaan maanta waxaan idinla qaybsanayaa maxaa sugayseen suugadii qadada maasha allah tabaarakallah khudaartan iyo kalluunka qasaca waxaan rabaa inaan kasoo sameeyo suugo cajiiba maasha allah tabaarakallah tan waa kalluunkii ama waa tuuna iyo khudaartan aa ujeediin insha allah qaabka aan u sameynayana waa isla arkaynaa waxaa iigu jiro kala baradho marka waa kaasaa suugo ayaan diyaarinayaa khudaartana ujeediinaan kasoo sameynaa soo dhaqa waa soo jarjaraa insha allah hadda waxaan isla imaanay qaybtii iyo digsigii aan ku karin lahayn saliidda iyo basasha sida caadada waaba u horeysaa mar walba marka ayagii lee aan ka bilaabaa insha allah qof dadaan ka hormarina way jirtaa laakiin ani mar walba basashaas baan saliidda ku horshubaa inta badan saasaan isticmaalaa waxaan sugayaa basasha ayaan waxyar oo waxaan kusoo darsaday toon shiidan waa toon waxaa arkaysiin kadib waxaan kusoo darsanayaa filfisha madow oo shiidan haddii ilaahay yiraahdo haddii aad jecleen filfish waa iska dhaafee waxaa gududan ee aan kusoo darina waa barbarooni shiidan insha allah haddaad jecesha isagana waa ku darsan karta haddii kalena waa iska dhaafee filfishan aadaa ugu dambeeya aniga waa jeclahay cuntada inta badan filfil la-aan ma kariyo maasha allah maaqaan gacanteeda la qabsatay marka waa kaasaa basasha waan waxyar sugayaa haddii ilaahay yiraahdo inay ii shiilanto kadib basasha inta ii shiilmaysa waxaan kusoo darsanayaa baradhadii oo aan soo jarjaray haddii ilaahay yiraahdo basashii baradhadan waxaan rabaa waxyar inaan isku shiilo abaar inaan taqaanaa isula ka shiilmaan intaan ku darin waxyaabaha kale marka hadda waxaan shiidanayaa alaabtii aan soo shiitay khudaartii dhan aa arkayseen wixii biroo kaliya maahan intii kale sakuunigii yaanyadii basbaaskii qayb basasha ka mid aan isku soo shiiday wixii dhan waa isku soo shiiday aan ka ahayn brokoliga markaana gab aan kusoo siiyey waa kusoo shubtay inay baradhada iyo intaan cabaar isugu karaan aan rabaa cabaar kadib waa kusoo laaftay maasha allah saan tartiibta ayay mataqaanaa usoo kareen haaf biseel waaye si fiican ma u bislaanin marka waa kana brokoliga aan ka reebtay ayaan kusoo darayaa oo rabaa inuu isagana la bislaado insha allah waa brokoliga freshka soo dhaqo soo jarjaray haddii aadan jecleen ama aadan haysanin dhib male wixii haysatida mar walba wax laga sameeya mogtahay marka maasha allah tabaarakallah suugo waxaa waaye cajiib oo aadan taqaana uga heli doonteen dhameysa fiidiyooga saa u aragtid meesha mataqaana ay ku dhamaatay iyo qaabka ay kusoo baxday marka waa kanaa haddaba iisoo bislaatay basasha way baaba'day baradhadii haaf way biseel waaye brokoliga sidoo kale way bislaaday maasha allah tabaarakallah saan ka rabay waaye marka hadda waxaan kusoo darsanayaa suugadii dhalada ee guduudneyd suugadan dhalada haddii aadan haysan yaanyada shishiida oo tan waa yaanyadii oo la shiiday oo xoogaa baasta loogu talagalay laakiin qofka shishiida adkeed haystana tan in yar bay shishiida ka biyeysan tahay marka qofkii shishiida haystana shishiida ayuu ku darsanaya qofkii kan haystana tan uu ku darsanaya insha allah marka waa kana akhyaarey hal dhala suugada baasta loogu talagalay oo shiidan ayaan kusoo darsaday maasha allah hadda waxaan kusoo darsanayaa maraq digaag haddii aadan jecleen waa iska dhaafee laba qaadoo yaryar iyo haaf aan kusoo darsaday intii markaas dhanaanka aa ka rabtid ayaa ka dhiganaysaa maraq digaag haddaadan jecleen maraq digaag aan isticmaalaa waa midka khudaarta ka sameysan marka haddii aadan jecleen waxaa ku darsan kartaa cusbada caadiga ama milixda insha allah waan ka tagnay waana kusoo noqonay maasha allah tabaarakallah waatana suugadistaan quruxda badan ayay usoo bislaatay waa ready hadda waxaan bilaabayaa inaan ku daro kalluunkii oo aan saliidii kasoo miiray ayaan kusoo darsaday suugadeeda saa aragtaan saliidda anaf intaasaa inay igu filan haddii saliid badan intaa ka badan jeceshahayna waa ku darsan kartaa maasha allah tabaarakallah caraf kaaliskaara waa suugo yaro fudud oo dhaqso waxaana arkaysaan waa toon iyo kamsar aan isku shiitay insha allah waa ku dhex qasay si fiican u dhex gelinaysa macnaa ugu dhex qasay marka hadda dafku waa u gaabiyey waayo hadda way bisashahay suugadan huuris basaa u dhiman insha allah waxyaraan huurinaya waxaana kusoo darsanayaa barbarooniga caadiga ee naqaanay iyo basalaan kusoo darsanaya insha allah kadib waa huurinaya dafkana meesha u gaabana u geynaya uma baahni dab badan hadda
basasha intii aad jeceshahay yaa ka dhiganaysaa markaas insha allah. waa huuriye baaran ka maqnaa, hadda waa kusoo laaftay. wax badan ma ka maqnay, wax yaraan ka maqnaa maasha allah. hadda dabka dhan waa damiyey, waayo waxaan arkaa inay ii bisashahay. suugadeeni maanta aad la qaybsanaysaan ayay noogu dhan tahay. waxa u dambeeyay aan kusoo darayna waa kamsar caleen fresh markii hore ayadoo shiidan aan ku daray, ayadoo freshna haddaan ku daray. saana ku daboolaya maasha allah tabaarakallah. carafteeda waxaan ku dhakaa iska arag macaankeedan ana inay dhadhamiyey maasha allah tabaarakallah. waaye ilaa intii aan haysan si aniga noo siyaadi maasha allah maasha allah. I hope inaad ka heli doontaan suugadan iisiga aadkan u fudud, waqti badan kaa qaadanaynin, dhaqsana ag taagnaanaynin, wax badan macaan badan fudud maasha allah. waa suugo baasto la baastada rabtid ayaa ku cunaysaa, wax kalena waa ku cuni kartaa, laakiin ani maanta waxaa ugu talagalay baasto maasha allah tabaarakallah. aad iyo aad u fudud tahay, aadna u macaan tahay. akhyaarteeda sharafta leh maanta intaan idinla qaybsanayo. hob inaad ka heshay, haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada iyo familigaaga. naga ilaawin subscribe-ka inaad tiraahdid thumbs up, gambaleelkana afarta saa u ogaato wax walba aan soo galno. assalaamu calaykum.